adwani salaam ya saaxiibayaal meel kasta joogtaan halkan warashka True Love saaxiibada waxaanu eegi doonaa warbixin ku saabsan Queen Hafsa miyay xiriir cusub samaysatay arrimahaas aynu eegi doonaa run ahaantii sawiro waxaa jira dabcan si kalgacayl ah ay isku eegayaan wiil ay markaasi asxaab yihiin Queen Hafsa maadaama Muqdisho imaaday dadkii qaar waxay leeyihiin Muqdisho waxay u timaaday inay isguursadaan wiilkan arrimahaas aynu eegi doonaa saaxiibayaal fadlan haddaad ku cusub tihiin channelka Narashka True Love waxaan idinka codsanayaa in YouTube-ka Narashka True Love aad subscribe gareysaan sidoo kalena aad laagtaan uga caawisaan wax kasta oo ku saabsan arrimaha baraha bulshada oo dabcan iminkan baa la hadalhayo waan idin soo gudbinayaa oo waad ku daawan doontaan saaxiibada oo channelkan rokono channelkana subscribe noo cisay oo subscribe noo sar wayahay saaxiibayaal hadaynu ku bilaabno muuqaalkan Queen Hafsa muddo toddobaad ah waxay joogtaa gudaha magaalada Muqdisho waxayna degan tahay mid kamid ah hoteelada ee weyn ee ku yaala gudaha Muqdisho gaar ahaan hoteelka lagu magacaabo Coconut waxaana sidoo kale dabcan muddo dhowr sano ah kadib timid Muqdisho muuqaalo kooban dabcan ka soo duubtay magaalada Muqdisho gaar ahaan xeebta Lido ayaa muujinaya in ay jacayl baaxad leh u qabto Muqdisho waxay sheegtay Muqdisho waa muyaaradda dalka wana meesha kaliya dabcan ugu quruxda badan Soomaaliya waxay tiri ma aanan u maleynaynin in Muqdisho sidaan ay tahay laakiin dabcan haddii aan ogaan lahaa Muqdisho waa ku noolaan lahaa ayay tiri waxayna socdaalkeeda ka soo kicitantay gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya Muqdisho markay timid waxa goobta u tagay ama hoteelka ay ka degan gudaha Muqdisho u tagay qaar kamid ah dadka caanka ama youtuberada caanka ee ku nool gudaha Muqdisho ay kamid yihiin Fartuun Barbalaarka oo ayadana qudheeda youtubeleyda ku nool gudaha Muqdisho ee kamid ah waxaana ay sheegtay inay ku faraxsan tahay aragtida iyo waliba inay is arkaan Queen Hafsa oo ah gabar degan caan ka ah ee YouTube-ka waxaana Muqdisho markay timid kadib la sheegay in dabcan ay u timid inay ismehersadaan wiil kale oo asxaab ay yihiin arrimahaas aynu eegi doonaa runaantii dadka qaar waxay leeyihiin Hafsa waxay u timid Muqdisho inay isku guursadaan wiil markaasi dabcan ayada jeceshahay halka qaarna ay sheegeen in Muqdisho ay u timaaday kaliya inay tahay maadaama wadankeeda ay muddo dhowr sano aysan ugu dambeyn ay muddo dhowr sano ugu dambeysay weeyaane ay timaado ama ay eegto bilicda waliba dabcan quruxda ay leedahay gudaha Muqdisho laakiin baraha bulshada la hadalhayay sawir dhowr ah oo muujinaya ayada iyo waliba wiil kale oo dabcan is eegaya kuwaasi oo aad moodo inay kalgacayl ama jacayl isku qabaan waxaana sidoo kale is leedahay Alleelahay waa lamaanayaasha ugu shidan iminkan basoo ifbaxaya ayaa is leedahay laakiin xaqiiqda dhabta ah ayaa iminkan ku haya soo dhawow hadda muuqaalkan xiiseenaysana fadlan iminkan hadda daawanayso YouTube-keena Rashka True Love noo subscribe garay sidoo kalena like nagu caawi wayahay saaxiibada hadaynu eegno ama aynu sii fiirino xogta ku saabsan Queen Hafsa waxa dabcan ay sheegtay wiilka ay sawirka ay isla gileen ama wiilka sawirka iminka ay idin muuqdo oo yahay mid markaasi asxaab yihiin laakiin dadka qaar waxay moodaan inay isjecel yihiin laakiin markasto inay isjecel yihiin inay asxaab yihiin kaliya waxaad ka ogaanaysaa walaaltinimada iyo sida degan aniga ma sheegi karayo inay walaalo yihiin laakiin waxaan isleeyahay waa asxaab weeyaan dadka qaar Soomaalideena inta badan laba ruux oo sawiro qurux badan isla galaya ama maxaa la yiraahdaa si walaaltinimo ah muuqaal isku soo duubaya haba ugu badnaatay dhanka TikTok iyo waliba YouTube-ka haddii dabcan lamaanayaashaasi mid kamid ah gabadha ay caan tahay laakiin wiilka kale uusan caan ahayn waxaad isleedahay waa isjecel yihiin waa dad isfahansan laakiin kaliya maaha in la isjeclaado jacaylka markasta waxa ka weyn walaaltinimada markastana waxa ka weyn isfahanka muhiimadu ma aha qof inaad jeceshahay kadibna aad muuqaal dabcan soo wada duubaysan kadibna YouTube-ka soo dhigaysaan soo marka aniga ahaanteedii maadaama aan baaritaan ku sameeyay xogtan waxaan ogaaday in wiilkan iyo waliba dabcan Queen Hafsa ay yihiin dad asxaab ah waana dad markaasi dabcan iminkanba u sii boqolay gudaha magaalada Nairobi waana dad markaasi isfahansanaa tan iyo gudaha magaalada Nairobi markay ku nooleed Hafsa Queen laakiin dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiinba inay isqabaan xataa micnaha Muqdisho isku guursadeen aad iyo aad waxa weeyaan Soomaali markii la yiraahdo way iska warjecel yihiin markii loo eego laakiin hadal yuusan ka tagin
aadiyad hadal yuusan kaa tagin waxaad isleedahay dadkan xiriir ayaa ka dhaxeeya laakiin kulley haddii xiriir uu ka dhaxeeyo waxaanu leenahay xiriirkiina ha wanaagsanaado waxaanu leenahay xiriirkiina ha noqdo mid markaasi dabcan Soomaalidu ay ku farxaan waxaanu leenahay xiriirkiina ha noqdo mid markaasi dabcan baraha bulshada uusan saameyn tago ku lahayn sababtoo tahay Queen Xafsa waxaa la ogsoon yahay in xiriir ay hore u lahayd sayna ay hore u lahayd iminkana kulley Cabdirashka oo ay hore isku qabeen Queen Xafsa iminkana Xafsa ay lamaane yihiin marka dadka qaar waxay isleeyihiin maadaama Cabdirashka oo lamaane uu hore u soo helay ama lamaane iminkan uu leeyahay Xafsana miyay lamaane kale tay baad goobaysaa wow waka aadiyad laakiin Queen Xafsa hore u sheegtay waxay tiri aniga qof ka baraha bulshada ma doonayo xataa haddii aan guursado qofkeygii baraha bulshada ma soo gelinayo ay sheegtay qof kasta hobby ayuu leeyahay qalad markuu hada qaldanto mar labaad waa saxaysa soma marka waxay ogaatay in nolosha baraha bulshada ama nolosha in la istusto kaliya lamaannimada raayadaha la jilayo muuqaal la soo duubayo inaysan ahayn jaceelka dhabta ah wuxuu markaasi u yahay qalbiga jaceelka dhabta ah maaha YouTube-ka in la isku imaado jaceelka dhabta ahna maaha in TikTok la soo duubo kadibna la yiraahdo macan badan qalbi inda uroon in la isdhaho maaha jaceelka dhabta wuxuu yahay waa mid abid ee dadkaysan kala tageen jaceelka dhabta maaha mid guurka lagu digdigo hadad kala irdhowdaan ama aad kala xanaaqdaana aad tiraahdo aniga waan ku furayaa oo xaaskayga matid jaceelka dhabta maaha midda markaasi aan lahayn kalsooni darada aadiyad kalsoonida ayaa ah mid markaasi aad u hufan intaasi odil horay ayay u sheegtay Queen Xafsa oo dabcan iminkan ba ee ka sii tagaysa gudaha Muqdisho waxay tiri run ahaantii Muqdisho markaan joogay waxaan dareemay farxad waxaan dareemay nolol aad iyo aad u qurux badan sidoo kale waxay tiri waxa ay qancisay quruxda gudaha Muqdisho gaar ahaan xeebta Lido waxay leeyihiin dadka ku nool qurbaha Muqdisho ma nabad ma aha Muqdisho ma aha waa dal inta badan markaasi dagaalo hareeyay laakiin Queen Xafsa ayaa waxay tiri warheedaha beentiina weeyaan Muqdisho waa muyaaradii dalka ay sheegtay ويا صاحبتي المقالكن انتنا يا كوها كينيا كسو gabagabeynaya saaxibada runtii marka gunaanadka hadaynu eegno Queen Xafsa wiilkan waad ku jeedaan xiriir jecel ma ka dhaxeeyo iminkan ayaan idin sheegaya laakiin hadii xiriir jecel ka dhaxeeyana waxaan leeyahay bal isku soo dhawaada oo noqda dadkii markaasi isfahansan marka saaxibada waxaan idin ka codsanayaa in YouTube-kana rashka Trulofano subscribe gareeysan sidoo kalena allaagtana waa caawisan saaxibada waxaan idin soo gudbin doonaa wax kasta oo dhanka baraha bulshada ku saabsan aadiyad qof kasta waxa uu xiiseeyaa aniga waxaan jecelahay wax kasta baraha bulshada ku saabsan inaan idin soo gudbiyo waad la socotaan oo dabcan haday noqon lahayd wax kasta baraha bulshada ku saabsan lamaanayaasha gaar ahaan arrimaha jaceelka dhawaana waxaan idin soo gudbin doonaa qisooyin jacayl oo aad iyo aad u xiiso badan haddaba qisooyinkaas yaa lagaga sheekeen